السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن وناكسن داود الكسو دوادا warka habeenada ka daawataan TV-ga caalamiga M24 TV qoobaha ku daawan doontaan warkeena maanta waxa ka mid noqon doona dawladda Soomaaliya ayaa kala hadashay Jarmalka gurmadka abaaraha ay saameeyeen dadka Soomaaliyeed ergeyga gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kulan qadka fuwan araga ah la yeeshay kulan ay safaaradda Jarmalka soo qaban qaabisay oo ay ka soo qayb galeen deeq-bixiyaasha fadhigoodu yahay magaalada Nairobi safiir ku-xigeenka Jarmalka Soshas ayaa hadalkiisa ku bilaabay inuu bogaadinayo mas'uuliyadda hoggaanka cusub ee Soomaaliya ay iska saareen arrimaha bini'aadanimada iyo sida firfircoon ee xafiiska ergeyga u dhaqaajiyay howlahani ayaa cadeeyay in Jarmalka xil iska saarayo gacansiinta Soomaaliya isagoo sheegay in ay sanadkani ku bixiyeen Soomaaliya ilaa iyo 45 milyan oo euro ergeyga gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dawladda Jarmalka iyo hay'adaha kale ba ugu mahadceliyay sida ay ugu heelan yihiin mar walba gacansiinta dadkiisa ayaa ugu waramaya xaaladda daran ee abaaraha iyo sida looga baaqanayo inay macluul isu soo bedesho howlgal ka dhan ah Al-Shabaab ayaa maalintii labaad waxa uu ka socdaa deegaano hoostaga gobolka Hiiraan ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa guutada shanaad qaybta 7aad ee ciidanka dawladda ayaa maalintii labaad howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ka wada inta u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne Matabaan Maxaas ee gobolka Hiiraan howlgalkani ayaa waxa hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan taliyaha guutada shanaad qaybta 7aad ciidanka xoogga dalka Colonel Maxamuud Xasan Ibrahim Bakay iyo taliyaha qaybta booliska Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle taliyaasha horkacaya howlgalka ayaa waxa ay sheegeen inay ujeedka howlgalkan uu yahay mid loogu doonayo in Al-Shabaab loogu saaro meelaha ay kaga sugan yihiin inta u dhaxaysa degmooyinka Beledweyne Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan wafdi ka socda dawladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galaya shir looga hadlayo la dagaalanka musuqmaasuqa shirweynaha 8aad ee caalamiga ee madasha Afrika ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa lagu qabtay dalka Djibouti mas'uuliyiin ka tirsan guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa ka qayb galaya shirkani oo socday 3 maalin ee la soo dhaafay waxaana laga hadlay arrimo badan oo khuseeya la dagaalanka musuqmaasuqa iyo sida dalalka Afrika ay isaga kaashan karaan ciribtirkiisa Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay xubin ka noqotay hay'adaha isku dhafka ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa biga iyo Kambariga Afrika dawladda Kenya ayaa shaacisay inay dib u bilaabayso qaadkii ay keeni jirtay dalka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalay inuu qaado xayiraadii uu dalkiisa saaray qaadkii ka imaan jiray Kenya waxa sidaas sheegtay wasiirka beeraha Kenya Batra Munya oo saxaafadda la hadlay maanta oo Jimcaha wuxuuna sheegay in wadaxaajoodka arinta ku aadan la soo afjaray dhawaan 2 isbuuc kadibna la saxiixi doono heshiis rasmi ah Batra Munya ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha Kenya oo arintani wada hadallo kala yeeshay dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dawladda Kenya ayaa sheegtay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu aqbalay inuu qaado xayiraadii uu dalkiisa saaray qaadkii ka imaan jiray dalka Kenya madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo beesha caalamka oo war ka soo saartay rabshadihii ka dhacay magaalada Hargeysa beesha caalamka ayaa ka hadashay rabshadihii ka dhashay banaanbixii shalay ka dhacay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland ee looga horjeeday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kaasi ay ku dhaawacmeen 10 qof oo ku jira xildhibaan Barqad Baatuun qoraalka ay soo saareen dalalka beesha caalamka ee doorashooyinka iyo geedi socodka dimuqraadiyadda ka taageera Soomaaliland ayaa sheegay inay aad ugu xun yihiin rabshadihii ka dhacay Hargeysa ayna ka waacsan yihiin dhacdooyinkaasi beesha caalamka ayaa madaxda Soomaaliland iyo kuwa mucaaradka ugu baaqay inay isxakameeyaan oo ay ilaaliyaan nabadda iyo deganaanshaha isla markaana muhiim ay tahay in dhinacyada khilaafka ka dhex jira lagu dhameeyo wada hadallo wax ku ool ah daawad wali waxa laga daawanaysaan TV-ga caalamiga M24 TV markaana ku soo dhawaada akhbaaraadka caalamka ruushka oo xukun dil ah ku riday dad ajaanib ah oo la sheegay inay ka barbar dagaalamayeen ciidamada Ukraine maxkamad ku taala bariga Ukraine oo ay maamulayso ruushka ayaa dil toogasho ah ku xukuntay nin u dhashay dalka Morocco iyo 2 British ah kadib markii lagu qabtay iyagoo ka dagaalamaya gudaha Ukraine Braham Soden oo Moroccan ah iyo Aidan Slin iyo Sean Boehner oo British ah ayaa lagu eedeeyay
inay calooshooda u shaqaystayaal ahaayeen sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Ruushka. Maxkamadda oo aan si caalami ah loo aqoonsan ayaa ku taala Jamhuuriyadda Donetsk ee taageersan Ruushka. Ingiriiska iyo Ukraine ayaa cambaariyay xukunada ku saabsan jebinta shuruucda caalamiga ee lagu ilaaliyo maxaabiista dagaalka. guud ahaan halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa warka habeenaad ka daawanayseen TV-ga caalamiga M24 TV. warkan waxaa idin soo jeedin oo idin soo saaray anigoo Cabsaaq Cabdi Ibraahim. sida iyo nabadgelyo.